Programka miiska noo saaran ma ahan mid looga bartay Soomaalida dhexdeeda, mana ahan mid ay dhaqan u leeyihiin lamaanayaasha Soomaalida isu soo xushay. Wuxuu yahay dhaqan Nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo guuriyay inuu ahaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam mid xaaskiisa la ciyaari jiray, la qosli jiray, la tartami jiray. Balse waxaad moodaa hadda in anaku aan aad u liidano, aan dibna uga dambayno dhaqamadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam. bal aad ba moodo in dadka kale ajaanibta kala ah ee islaamka ay nooga xog badan yihiin muujiyaan oo dhiirigeliyaan dhaqamadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam. tani waa farxadda uu qoysku ku dhisan yahay in ay labada lamaan isla qaataan waqti. waxaa ninka xaaska qaba looga baahan yahay inuu xaaskiisa la qaato waqti, inuu la qoslo oo la ciyaaro, inuu siiyo jaanis, inuu la qaybsado nolosha farxadeed ay ku sugan tahay, inuu dareenkeeda ka warhayo, inuu maanta uu la qaybsado xalad alaala xalad kasto ay ku sugan tahay, hadday faraxsan tahay iyo hadday naxsan tahayba. waa sax waxaa laga sugayaa quudkii la quudan lahaa, laakiin taasi micnaheedu ma ahan inaad isku soo diyaarisid dareenkii aad gudan lahayd. waa maxay haddaba waajibaadka saaran lamaanaha isqaba? lamaanuhu waa inay isa siiyaan kalsooni buuxda iyo farxad buuxda. lamaanuhu waa inay kala helaan fursad ay isku raaligeliyaan. waxaa muhiim ah inuu ninku ilaaliyo dhaqdhaqaaqiisa, socodkiisa iyo safarkiisaba. taasi waxay u sahlaysaa inaysan xaaskiisu marnaba ka qaadin shaki, una qaado kalsooni buuxda. waxaa muhiim ah inay lamaanuhu samaystaan jadwal, maalmo ay wada ciyaaraan, saacado ay wada qoslaan, waqti ay farxadda isla wada qaybsadaan, waqti ay sheekaystaan, waqti ay kulmaan, indhaha isa siiyaan, wada joogaan, wada socdaan, wada qoslaan, farxadda isla qaybsadaan. waxaan si guud ugu dirayaa Soomaaliya oo dhan, nolosha guurku ma ahan sidaad moodeen oo kaliya. waxaa laaga baahan yahay inaad ballaadhisid, weynaysid, farxad gelisid. waxaan filayaa inaad fahantahay ulajeedka programkan. Assalaamu calaykum.